waan ka bilownay Uganda, Ethiopia iyo hadda oo aan ka nimid Djibouti ujeedada socdaalkeena wuxuu ahaa runtii in aan wada tashano oo la tashi xaaladda amniga ee dalka ka jirta iyo dhibkii culayska badnaa ee soo gaaray oo ahayd dad badan oo 360 kor u dhaafaya oo waxba galabsan October 14keeda lagu xasuuqay oo qolooyinka nabadiidka ay shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyeen dad 400 kor u dhaafayana halkaasi lagu dhaawacay inaan dardar gelino oo aan abaabulno wada shaqayn cusub korna loo qaado sidii dawladahaas ciidamada halkan ka joogan iyo ciidamada qaranka xooga SNA ay saga kaashan lahaayeen dardar gelinta la dagaalanka argagixisada runtii u taagan inay ummadeena mar alla markay rabaan ay xasuuqaan ee magaaladan dhibaato ka sameeyaan sidaan isu taagi lahayn oo aan dardar gelin lahayn hawshaas ilaahina waa nagu soo guuleeyay waxay ballan qaadeen oo runtii ay ka jawaabeen codsigeennii oo ahaa in ciidamadeena la xoojiyo qalab iyo agab iyo waxay u baahan yihiin inay gacan naga siiyaan iyadana arrintaas waa aad bay u soo dhaweeyeen waxaan rabaa inaan ku baaqo arrin muhiim ah arrintii dhacday inaysan dib daba noogu soo noqon waxaa loo baahan yahay haddaba in qof walba oo Soomaaliyeed uu qayb ka qaato la dagaalanka qolooyinka nabadiidka ah oo caadaystay inay ummadeena laayaan oo aan isu taagno maxaan ku raahdaa sidaan isu difaaci lahayn weerarkana aan meesha ay joogaan aan u geeno si aysan u helin waqti iyo maxaan ku raahdaa waxay noogu imaan lahayn halkan oo ay maalin walba ay dhibaato noogu geysan lahaayeen waa u diyaar garoobeynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo qof walba oo Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay isu diyaarinayaan oo aysan aqbalaynin mar dambe wixii dhacay inaysan dhicin wixii dhintay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah degdeg uga kiciyo xanuunka iyo dhaawaca laakiin u dul qaadan mayno maalin walbaba in dad masaakiin ah oo waxba galabsan runtii ay ku muujiyaan shabaab dhibaatada ay geysan karaan oo taasoo cadeynaysa waxay u dan leeyihiin inaysan ahayn dawlad iyo shakhsi aysan ahayn laakiin waxay cadow ku yihiin ay tahay shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidaas darteed qof walba waajib baa ka saaran inay qayb ka noqdaan ilaalinta amniga dhalinyarada khaasatan waxa waajib ka saaran inay isu abaabulaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh sameeyaan oo ay qayb ka noqdaan hawsha aan ku jirno aan ku soo celinayno amniga magaaladan iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed intaan wax ka dambeeya u dul qaadan mayno oo xaqiiqo waxa ah inay shabaabku isku dayeen marka hore inay dad yar laayaan marka ku xigtay arday laayaan markaana ay laayaan ummadan ay laayaan marka hadda dambe waxa ku xigta inay sameeyaan xasuuq baahsan waxay doonayaan inay sameeyaan xasuuq baahsan oo aanan loo aabiyeelin caruur waayeel dumar iyo ciroole cid walbaba marka waxaan sugno wixii hadda ka dambeeya runtii wixii aan sugno waa dhibaato saas darteed kulligeen waxaan diyaar u nahay annaga aan ku hogaaminaynaa shacabkeena Soomaaliyeed waxaan ku hogaaminaynaa inaan u diyaar garowno dagaalka dheer runtii nagu soo socda waxaan aaminsanahay annagoo Ilaahay kaashanayna inaan ku guuleysano insha Allah waana mahadsantihiin